waxaan soo eegay goobta maxkamaddu ay ka dhacayso oo ah guriga dowladda ee degmada Henebin waxaana lagu gadaamay dhagxaan iyo silig adag si rabshadaha looga hortago wadooyinka soo galana iyagana qaar baa laga ooday dadka iyo baabuurtaba hogaamiyaasha magaalada Minneapolis iyo saraakiisha amniga ayaa sharaxaad ka bixinayay maalmahan diyaar garowgooda sidii looga hortagi lahaa burbur rabshado wata inta lagu guda jiro maxkamadaynta sarkaalkii hore ee booliska Minneapolis ka mid ahaa Derek Chauvin oo ah ninka ku eedeysan dilka George Floyd waxa ay sheegeen in qorshayaashooda uu ka mid yahay in la keeno 1,100 saraakiil booliisa oo dheeraad ah oo ka kala socda 12 hay-adood oo nabadgelyada ku shaqo leh iyo sidoo kale 2,000 oo ka mid ah ciidamada ilaalada qaranka oo ka howlgalaya magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul maxkamadan oo la asteeyay inay socoto ilaa iyo dhamaadka bisha Abriil ayaan qareen Cabdiwaaxid Qalinleh weydiiyay dacwadaha noocan ah sida ay ku bilaabmaan qaadistooda maxkamadahani runtii waa maxkamadaha kuwa ugu muhiimsan xeer beegti ayaa u fadhida waa trialka waxa loo yaqaan ama dacwo dhagaysigii weynaa weeyay taas marka waxay ka dhigan tahay case ku gabagabo weeyay waxa 12 qof oo xeer beegti ah ama dad go'aan ka gaari doona dacwadan ayaa la fariisin doona marka sida caadiga waxay ku bilowdaan in marka hore la doorto dadkaasi labada dhinacna waxay aad iyo aad dagaal culus u gali doonaan xulashada dadka noqon doona 12 ka qof waxa laga soo reebi doona marka 12 qof oo noqdo dadka hadhow go'aan ka gaari doona dhismaha aan soo arkay ee maxkamadda degmada Henebin sababta sida adag ee dhagxaanta leh loogu dihaamay ayaan weydiiyay Jamaal Xasan Cusmaan oo ka mid ah golaha deegaanka ee magaalada Minneapolis kana mid ah guddiga ka arrimiya xaaladahan oo kale sababta waxa ka mid ah waa ognahay arrintii ka dhacday Minneapolis oo aashka u foolxumeed magaalada ay gubanaysay waxaan ka taxadaraynaa inaan arrintaas ay soo noqon aysan dhicin businessyadana aan la gubinin dadka hantidoodana loo badbaadiyo marka downtown-ku waa meesha maxkamadda ku taalo dad badan ayay soo jiidanaysaa oo adduunka dhan baa indhaha ku haynaya laakiin saas oo ay tahay dadkii nabadoodii iyo downtown-ka nabadiisa iyo magaalada nabadeedaba si loo sugo taxadar ayaa keenay Sadaxaashi oo loo yaqaano Abaadir waxa uu ka mid yahay ganacsatada uu hore qasaaruhu u gaaray wuxuuna sawirayaa xaaladda ay soo mareen dilkii George Floyd kadib taas waxa noogu sii horeysay oo laakiin sanadkan bilowgiisa nagu timid COVID-19 taas ayadoo ayna haysato oo dhibaato weyn ugu keentay oo suuqeena uu naga xirmay oo dadkii xataa socodkii iyo gadashadii iyo wax gadan jireen ay joogsadeen ayaa haddana waxa dhacday ninkii odaga TC ku timid George Floyd oo meelaha aan businesska ku leenahay oo halkaana Lake Street ayaa waxa ka dhacay qasaare aad u tiro badan ay geysteen dad qaswadayaal oo kiimid badankood meelo kale oo magaalada u yimid inay wax ka jabiyaan taasna waxay sababtay in Minneapolis ama Lake Street meelaha Soomaalida ay businessyada intoo badan ay ku leeyihiin in billimadii ku yaalay iyo businessyadii ku yaalay la gubo isbahaysiye ka badan 10 oo cadaaladda bulshada u dooda iyo kooxo kale ayaa sheegay inay dhigayaan banaanbaxyo 8 Maarso iyagoo dalbanaya in cadaalad loo sameeyo George Floyd Abaadir ayaan weydiiyay cabsi intee leeg ayay ku haysaa ganacsatada Minneapolis dibadbaxyadaas cabsi badan baa jirta businessyadii kale waxay ka cabsanayaan nabadgelyadii ma sidii hore ku noqon doontaa magaalada qaskii iyo gubashadii iyo dhicitaankii iyo waxa dib u bilaabmanay marka taas warnaha farq inaan ku hayna keentay rabshadihii dhacay May iyo June sanadkii hore dad badan ayaa loo maxkamadeeyay ma ku jireen dad Soomaali ah ayaan weydiiyay qareen Cabdiwaaxid dadka dabcan rabshadihii hore ee ka qayb qaatay sida la sheegay waxa kamid ahaa baa leeyahay dad Soomaali ah aniga kula hadlaya lawyer ahaan waxa aan metelay ama aan qareen u noqday dad kamid ah dad waxyaabo noocaas lagu eedeeyay marka Soomaalidu dabcan waxay kamid yihiin bulshadan ay kamid yihiin ku dhaqan Minnesota oo waliba ah bulshada madowga ah ama dadka laga tirada badan yahay aadna runtii saameyn weyn bay ugu yeelatay dhacdadan foosha xun leh ee loo geystay ninkii George Floyd ee lagu dilay si arxam darro ah
qarashka badan ee ku baxaya sugidda amniga yaa daboolaya ayaan isagana weydiiyey jamaal xasan cusmaan ugu dambeyntii. Qarashka xoogiisa wuxuu ku dhacayaa magaalada Minneapolis oo dhibaatadu ka dhacday, laakiin gobolka governorkiisa ayaa wuxuu proposal noo suubiyay ama noo ballan qaaday inuu $34 million uu baasgaray doono, laakiin taas oo ay tahay xisbiga kaleeto oo Republicaanka ayaa hortaagan doodaasna way ka socotaa, laakiin annagoo City Minneapolis waxaan rajaynaynaa inay arrintan insha Allah soo xil gasho.